يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال. salaamu calaykum dhammaan ku soo dhowaada channelka abdiwahab 456 channel. sidaad horeba u ogeydeen waxaan mar walba soo gelinaa halkan oo aan idinla wadaagnaa muuqaallo la xidhiidha dhinacyo badan oo nolosha ah oo ay ku jiraan wararka, dhacdooyinka adduunka, waxbarashada, muxaadarooyinka islaamka, muuqaallo dhiirigelin ah, tiknoolajiyada iyo qaar kale oo badan. haddaba maanta maadaama ay Ramadaan soo dhowdahay waxaan si kooban uga hadli doonaa muhiimadda Ramadaanka iyo xogo ku saabsan bisha Ramadaan. Ramadaantu waa bil barakaysan oo soonka, is-aragtida iyo ducada u ah muslimiinta. waana bishii la soo dejiyey Qur'aanka Kariimka. soonku waa mid ka mid ah 5 qodob ee aasaasiga ah ee Islaamka. maalin kasta oo Ramadaan ah muslimiintu ma cunaan mana cabbaan waa beriga ilaa qorrax dhaca. sidoo kale waa inay ka fogaadaan dhammaanba wixii waxyeelaynaya soonkooda. muslimiintu waxay afuraan maalin walba marka ay cadceedu dhacdo oo ku beegan salaada maqrib. Ramadaanku waxa uu had iyo jeer ku beegan yahay bisha 9aad ee kalandarka Islaamka. Ramadaantu isku maalin ma bilaabato sanad kasta maxaa yeelay waxaa jira waxa loo yaqaano ikhtilaaful madaali oo micnaheedu yahay kala duwanaanshaha xilliga qoraxda iyo dayaxu ay soo baxaan. balse Ramadaanka 2023 sida la isku waafaqsan yahay waxa uu bilaabmayaa fiidnimada Khamiista Maarso 23 wuxuuna dhammaanayaa habeennimada Khamiista Abriil 20. xaqiiqooyinka Islaamka. Islaamku waa diinta labaad ee ugu weyn adduunka marka laga yimaado diinta Kiristaanka, waxayna muslimiinta tiradoodu kor u dhaafaysaa 1.8 milyan sida ay sheegtay daraasad la sameeyey 2015. Islaamku wuxuu asal ahaan ka soo jeedaa Carabta maadaama uu Nabi Maxamed ahaa Carab naxariis iyo nabadgelyo eeba korkiisa ha yeelee. wuxuuna ku faafay adduunka oo dhan. waddamada ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan waxaa ka mid ah Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Sacuudi Carabiya, Nigeria, Masar, Yemen, Soomaaliya, Imaaraadka, Turkiga iyo Iiraan. Ameerika waxaa ku nool dad lagu qiyaaso 7 milyan oo muslimiin ah oo ay la socdaan goobaha cibaadada Islaamka laguna magacaabo masaajidada dhammaan waxayna ku kala nool yihiin 50 gobol ee Maraykanka. Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo eeba korkiisa ha yeelee waa nebigii ugu dambeeyey ee nebiyada ay ku jiraan Aadan, Ibraahim, Muuse iyo Ciise kuwaas oo eebe uu doortay. Carabi ahaan Islaamku macnihiisu waa isdhiibid ama isdhiibid Ilaahay la isku dhiibo. 5 tiir ee Islaamka ayaa aasaas u ah nolosha muslimiinta. tiirarka waxaa ka mid ah shahaadateynka oo ah caddaynta iimaanka ma jiro ilaa xaq lagu caabudaa oo aan Allah keligiis ahayn, Maxamedna waa rasuulkii Alle. salaada muslimiintu waxay tukadaan 5 jeer maalintii. sakada, sadaqada, soonka iyo xajka muslimiintu waa inay xajka tagaan ugu yaraan 1 mar inta ay nool yihiin haddii ay awoodaan jidh ahaan iyo dhaqaale ahaanba. natiijo ahaan, maxaa Ramadaanka loo soomaa? Ramadaan waxaa loo soomaa waa bishii uu Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxyiga lagu soo dejiyey Qur'aanka Kariimka ah. Qur'aanku wuxuu leeyahay Suuratul Baqara aayada 185. waa bisha soon ee la soo dejiyey dhexdiisa Qur'aanka isagoo hanuun dadka u ah iyo caddayn hanuun iyo kala saaris xaqa iyo baadilka ee ruuxii joogaha soomo ruuxiise buka ama safar ah waxaa saran maalmo kale wuxuu idinla dooni eeba fudayd ee idin lama doonayo culays waana inaad dhammaystirtaan tirade weynaysaana eebe wuxuu idinku hanuuniyey waxaadna u dhowdihiin mudan tihiin inaad mahadisaan eebe. axkaamta Ramadaanka. inta lagu jiro bisha Ramadaan muslimiintu waxay soomaan subaxda ilaa maqribka maalin kasta. waa inay ka fogaadaan cunista, cabbitaanka, sigaarka, xidhiidhka haweenka iyo sidoo kale fikradaha iyo ereyada aan wanaagsanayn ama anshax xumada ah. Ramadaanku waa waqti lagu dhaqmo isxakamaynta nafta. soonka ayaa loo arkaa inuu yahay dariiq lagu nadiifiyo nafta oo loogu naxariisto kuwa gaajaysan ee aan wax haysan. muslimiintu waxay aadaan shaqada iyo iskuulada waxayna qabtaan howlahooda caadiga ah inta lagu jiro bisha Ramadaan. si kastaba ha ahaatee qaar ayaa sidoo kale akhriya Qur'aanka oo dhan iyaga oo tukanaya salaad gaar ah oo loo yaqaano taraawiix.
dhammaan muslimiinta qaangaaray ee caafimaadkoodu wanaagsan yahay waxaa laga rabaa inay soomaan. Bukaanka iyo waayeelka oo ay weheliyaan dadka safarka ah iyo haweenka uurka leh waa laga dhaafay, inkasta oo laga rabo inay dib u soo buuxiyaan maalmo kale. Haddii aanay sinaba u awoodina ay quudiyaan masaakiin. Cuntada ugu horraysa ee subaxda ka hor inta lagu jiro Ramadaanka waxaa loo yaqaan suxuur. Soonka maalin kasta waxaa lagu jebiyaa ama lagu afuraa cunto loo yaqaan afur. Dhaqan ahaan timirta ayaa la cunaa si loo afuro. Noocyada cuntooyinka la cuno way ku kala duwan yihiin si waafaqsan dhaqanka. Xilligan afurka muslimiintu way farxaan waxayna Ilaahay weydiistaan in uu soonkoodii ka aqbalo. Tobanka dambe ee Ramadaanka waxaa ku jira habeenka loo yaqaano Laylatul Qadriga. Waa habeen aad u fadli badan, malaa'igta ayaa la soo dejiyaa, Ilaahay ayaa karaameeyey, kitaabkiisana ku xusay. Waana habeen qofka ducadiisa la aqbalo. Si kastaba ha ahaatee, habeenkaas waa mid fadligiisa aad loo weyneeyey. Sidaa darteedna muslimiintu waxay tukadaan xilliga habeenka gelinkiisa dambe salaad loo yaqaano tahajjud. Gebagabada bisha Ramadaan waxaa jira dabaaldeg weyn oo loo yaqaan Ciidulfidriga ama Ciidulfidriga oo ah ciidii soonfurka. Waana mid ka mid ah ciidaha waaweyn ee Islaamka. Waxay bilaabmaysaa maalinta ka dambaysa bisha Ramadaan markay dhammaato waxayna socotaa 3 maalmood. Munaasabadda Ciidulfidriga ayaa waxaa ka mid ah salaad gaar ah iyo cuntooyin lala qaato asxaabta, qaraabada iyo raashin la siiyo dadka masaakiinta ah. Waxaana inta badan la isku dhaafsadaa hadiyado. Muuqaalkani intaa ayuu ku eg yahay, tan iyo kulan dambe. Waxaan ku leenahay Ramadaan Kariim. Haddii aad ka heshay muuqaalkan fadlan ha ilaawin inaad subscribe, like iyo share dhahdo si aan u soo badino muuqaalo noocan oo kale ah. Mahadsanid.